kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia. Qodobadan soo qaadan doonana waxaa kamid ah dagaalada waqooyiga wadankaasi ka socda oo halkoodii ka sii socda iyo wada hadaladii la filayay inay Koonfur Afrika ka bilowdaan oo bilowday socdana waxaa laga soo saaray war murtiyeedkii ugu horeeyay sida uu baahiyay urur goboleedka Midowga Afrika. qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa iyo waxyaabaha laga wada hadlay iyo guud ahaan xaaladda haatan ka jirta ee muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga. Wadna ku mahadsantihiin araadiina iyo fikradihiina ku aadan la socoshada barnaamijyadan halkan ku baahino. Wixii taliya tusaale ah hoos ayaad noogu reebi kartaan. Aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan idinka codsanaynaa inaad follow, subscribe iyo share intaba aad nagu caawisaan dhiirigelin ayay noo tahay. hadduu guul la saamaxana waxaan rajaynaynaa inaan horumar ka samayno barnaamijyadan halkan soo gelino oo isbedelo waaweyn ku samayno. Aku bilowne waqooyiga wadanka Ethiopia wali waxaa ka taagan dagaalo u dhaxeeya ciidamada huwanta ee isgarabsanaya ee dawladda federaalka wadanka Ethiopia, militariga wadanka Eritrea iyo sidoo kale ciidamada deegaanada qaarkood oo garab siinaya ciidamada dawladda. Dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda maalmihii la soo dhaafay waxaa cagta la mariyay oo gudaha loogu tagay kooxda TPLF oo in muddo ah dagaal ku jirtay dawladda federaalka wadanka Ethiopia ka soo horjeed. Dagaalkan ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid kooxdii TPLF si kastaba ha noqotee hilfaha loo qaado. waxayna dadka qaarkood leeyihiin dawladda Ethiopia kama adkaanin TPLF ee waxa dhibaatada u geystay ama jabka uu ka soo gaaray ciidamada Eritrea oo horay ay dagaalo badan u soo wada galeen kuwaasi oo ay isdirir yaqaanaan ama isxeelad yaqaanaan. waana mid hadda keentay kadib markii ay ciidamada Eritrea dhinaca shishe ee waqooyiga ama dhinaca galbeedka iyo waqooyigaba ay kaga soo dhufteen, sidoo kale tan dhinaca deegaanka canfarta ay ka weerareen in haddana kooxda TPLF ay hadda dareemayso in ay isku ururto oo bal ugu yaraan waxyaabaha ugu waaweyn ee ay badbaadsan karaan ay badbaadiyaan iyo magaalooyinka waaweyn oo isku dayaan inay difaacaan. laakiin marka la fiiriyo magaalooyinka hadda laga qabsaday oo 100 kiiloomitir u jira magaalada caasimadda ah ee Makale iyo sidoo kale dagaalka xawliga ah ee ciidamada ay dhinacyada ka wada iyo waliba Eritrea oo iyadoo aan marnaba diyaar u ahayn in wada hadal lala galo si wada hadalkaasi u burburana saacadihii la soo dhaafay dagaalka laba koor jibaartay ama saddex jibaartayba ayaa waxay keeneen in kooxda TPLF ay dib ugu gurtaan gudaha deegaanadooda caasimadda iyo deegaanada ka agdhowna ay isku aruursadaan si halkaasi ay abaabul uga sameeyaan. taliyaha ciidamada TDF-ta ama Tigrayga ayaa waxa uu sheegay in ay soo rogaal celin doonaan mar kaleetana ay cadawgooda dacar dhadhansiin doonaan. halka sidoo kaleeto madaxweynaha deegaanka Tigrayga Debretsion Gebremichael uu isaguna sheegay in hadda ay guulo sheegan karaan dhinacyada dagaalka kula jira laakiin libin rakaaga dambeeyo inaysan libin ahayn ayuu sheegay, taasi oo ku sifeeyay in waligood iyagu ay ahaayeen difaacayaasha wadanka Ethiopia iyo deegaankooda cadawga hadda soo weerarayna ay meel iska saari doonaan ama ay ka adkaan doonaan muddo maalmo ah. waad sheegan kartaan libin iyo awood ayuu yiri madaxweynaha deegaanka Tigrayga Debretsion Gebremichael oo ka hadlayay arrintan. dagaalka waqooyiga ka socda marka wali waa uu taagan yahay marba marka ka dambeysana filashadu waxay tahay in xabad joojin laga soo saaro shirka ka socda wadanka Koonfur Afrika, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda waxa ka soo bixi doona shirarkaas ama kulamadaasi kala duwan. dhinaca wada hadallada haddii aynu aadno wada hadallo in muddo ah laga dhursugayay ayaa waxa ay ka bilowdeen wadanka Koonfur Afrika habeennimadii xalayto ilaa maanta ilaa iyo hadda ay wada hadalladaasi socdaan. waxay u dhaxeeyaan kooxda TPLF oo ay hogaaminayaan taliyihii hore ee ciidamada militariga wadanka Ethiopia oo nin deegaanka Tigray ka soo jeeday haddana la aaminsanaa inuu xeeladaha dagaalka si weyn uga qayb qaadanayay kooxda TPLF ay guulaha ku gaartay iyo sidoo kale
afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda labadaasi nin ayaa hogaaminaya dhinaca TPLF halka dowladda federaalka wadanka Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Demeke Mekonnen iyo mas'uuliyiin kaleeto ay ku matalayaan wada hadallada ra'iisul wasaare ku-xigeenkana uu yahay qofka hogaaminaya xubnaha wada hadallada Ethiopia oo qaabilsan waxa kaleeto oo kulankan qayb ka aha midowga Afrika oo hogaaminayo Muuse Faki Maxamed gudoomiyaha ururkaasi oo isagu ah dhexdhexaadiyaha hawshan amaba arintan labada dhinac u dhaxaysa sida uu war-saxaafadeed goor dhaweyta soo saaray Muuse Faki Maxamed oo bartiisa Twitter-ka uu ku baahiyay uu ku sheegay waxa ka qayb galaya wada hadalladan xubno kaleeto oo ka socda ururka IGAD iyo sidoo kaleeto wakiilo ka socda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo waliba dowladda Mareykanka dhamaantood waxa uu ku sheegay karjoogayaal kala duwan oo la socon doona sida ay xaaladdu u dhacayso iyo waxyaabaha halkaasi ka dhacaya gudoomiyuhu waxa uu sheegay in ay ka sugayaan amaba ay filayaan wada hadalladan in ay wax wanaagsan ka soo baxaan waxa uuna ugu baaqay dhinacyada kala duwan in ay dhamaantood rajo wanaagsan ka fishaan wada hadallada gudoomiyaha midowga Afrika ayaa war-saxaafadeedkan waxa uu ku sheegay in ay socdaan wada hadalladu rajo fiican ah waxa uu sheegay in ay qabaan si arrimahaasi amaba in la soo afmeeri doono dhanka kaleeto wada hadallada oo ah mid marka la fiiriyo aad u culus qodobada dhinacyadu ay horyaala ama ay dhinacyadu kala wataan iyo waliba sida ay xaaladdu tahay waxa la filayay inuu muddo 3 bari ah ku soo gabagaboobo laakiin waxa la sheegay inuu ilaa iyo 30 bishan gaari doono taasi oo micnaheedu ay tahay in muddo ah socon doono ama muddo ka badan waqtigii la filayay in ay wada hadalladani guud ahaan socon doonaan arinta dhinacyada kaleeto ee ka qayb galaya ilaa iyo hadda dowladda federaalka wadanka Ethiopia ma aysan cadeynin iyadoo la wada og yahay inaysan raali ka ahayn inay cid kaleeto ka soo qayb gasho wada hadallada waxa kaleeto oo iyadana dhinacyadani waxa ay kala naawilayaan ama ay kala doonayaan marka aan fiirino ugu horeysa hadda bal horta xabad joojin dagaalka hala jooji dadka gudaha wadanka Ethiopia ku sugan ee ka soo horjeeda TPLF dowladda Eritrea iyo dhinacyo kala duwan ba waxay aaminsan yihiin inay dowladda federaalka Ethiopia fursad haysato kooxda TPLF-na la soo gabagabeeyay sanadkii horeeto iyagoo sidan oo kale u soo gabagabeeyay ayay dowladaha reer galbeedku xabad joojin kala dhax dhigeen kadibna waa TPLF dib isu soo abaabushay dagaalka xooga badan ee muddada bilaha qaatayna waa ka ay wadeen ama sanadku dhawaadka sidaas darteed mar kale TPLF dhiig cusub intayna isku soo shubin hadda aan ka adkaano waxa qaba aragtidaasi oo mar walba la taagan asiyaasa fawarki madaxweynaha Eritrea oo isagu doonaya in aan xabadda iyo dagaalka hadda socda marnaba looga jabcinin kooxda TPLF inta ay iska dhiibayaan ama hubka ay ka dhigayaan isku soo wada duuduube wada hadallo ayaa socda dagaalkiina waa uu sii socdaa oo dhinaca kale laakiin rajadu waxay tahay in la soo gabagabeeyo dagaalkaasi wada hadalladuna ay mira dhalaan waad mahadsantii